kulanti wanaagsan daawade halkan waa janalka madasha wararka kusoo dhawaada qodobada wararka waxaana kamid ah Kenya oo duqeyn ku burburisay xarun shirkadda Hormuud ay ku leedahay degmada Ceelwaq gobolka Gedo xiisad ka taagan qorshe ee dawladda federaalku ay doonayso in ay ku keento magaalada Muqdisho hoggaanka ahlu sunna ma dhabaha in shabaab muddo hal sano ay hortaagan yihiin dhismaha madaxtooyada dawlad goboleedka Hirshabelle siday Puntland kaga hadleen isdhiibitaanka madaxda ahlu sunna iyo dagaalkii ka dhacay Dhuusamareeb iyo Gurceel fadlan haddii aad nagu cusub tahay janalkan subscribe si aad u hesho wararka iyo warbixinada halkan aan ku soo gudbino aynu ku horeynay daawade faahfaahino ayaa ka soo baxaya duqeyn xalay saqdii dhexe militariga Kenya ay la eegteen xarun shirkadda isgaarsiinta Hormuud ay ku leedahay degmada Ceelwaq gobolka Gedo duqeynta oo ahayd mid xooggan ayaa si gaar ah uga dhacday deegaanka Xiisa Guur oo 20 kiiloomitir u jira degmadaasi mid ka mid ah saraakiisha ciidanka dawladda federaalka ee gobolka Gedo oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in ilaa iyo 12 gantaal lala beegsaday xarunta shirkadda Hormuud isla markaana uu haatan socdo baaritaano ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi sidoo kale wuxuu tilmaamay in dadka shacabka ah ay la soo darastay cabsi ku aadan waxyeelada ka soo gaartay duqeyntaasi Kenya ayuu sidoo kale ku eedeeyay sargaalkaasi in ay ku soo xadgudubtay dhulka Soomaaliya wuxuuna ku goodiyay in jawaab degdeg ah ay ka bixin doonaan arintaasi ilaa iyo hadda wax hadal ah kama uusan soo bixin maamulka Jubbaland ee ku aadan weerarkaasi la eegtay xarunta Hormuud ay ku leeyihiin degmada Ceelwaq ee gobolka Gedo haatan maamulka Hirshabelle ayaan ku guuleysan dhismaha xarumaha iyo sidoo kale madaxtooyada ee Hirshabelle la doonayo in laga hirgeliyo magaalada Jowhar shabaab ayaa sanadkii hore waxa uu baajiyay dhismaha xaruntaasi madaxtooyada ee Hirshabelle kadib markii ay u goodiyeen shaqaalihii dhisayay wadayaasha gaadiidka qalabka soo qaadi lahaa iyo ceelasha biyaha dhismaha bixiya shabaab ayaa dadkaasi ugu hanjabay dil waxaana ilaa iyo hadda aanan jirin isku day ku saabsan dhismahaasi iyadoo maamulka Hirshabelle hore ay u burburiyeen dhismihii madaxtooyada iyo baarlamaanka oo ku meel gaar ahaa warar ayaa sheegaya in Hirshabelle dhismahan ay wadi weysay sababo amni awgeed waxaana lagu goodiyay qof kasta oo door ku yeeshay dhismahaasi in la dili doono baarlamaanka Hirshabelle hadda ma laha xarun ay ku shiraan waxaana loo kiriyay howl hotel oo ku yaala magaalada Jowhar oo qayb ka mid ay degan yihiin mas'uuliyiinta Hirshabelle halka madaxtooyadana laga dhigay xarun ay leedahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha beeraha Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa sanadkii hore dhagax dhigay dhismaha xarunta madaxtooyada baarlamaanka iyo xarumo wasaaradood hayeeshee waxaa muddo kadib joojiyay dhismaha xaruntaasi shabaab arintan ayaa waxa ay culays weyn ay ku noqotay maamulka Hirshabelle oo sugila amniga magaalada Jowhar markan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay galab diyaarad gaar ah ka dirtay magaalada Muqdisho taasi oo la damacsanaa in lagu soo qaado hoggaanka sare ahlu sunna kuwaasi oo isku dhiibay dawladda Soomaaliya kadib markii looga adkaaday dagaalkii ka dhacay Dhuusamareeb warar lagu kalsoon yahay oo uu helay janalkan madasha wararka ayaa sheegaya in xafiiska ra'iisul wasaaraha laga amray diyaaradaasi kadibna General Mas'uud laga dalbaday in hoggaanka ahlu sunna uu ku wareejiyo Farxaan Qaroole balse uu diiday General Mas'uud oo ay qaraabo yihiin Sheekh Shaakir iyo Macalin Maxamuud isla markaasna ay naftooda iyo hantidooda ay ku aamineen ayaa dawladda Soomaaliya u sheegay in uusan dhiibi doonin hoggaanka ahlu sunna haddii la isku dayana arintaasi uu u rogi doono arrimo qabiil General Mas'uud ayaa waxa uu madaxda qaranka u sheegay in uusan dhiibi doonin hoggaanka ahlu sunna oo heshiiskii ay isku dhiibeen uu ahaa in isaga uu ilaaliyo haddii la isku dayana uu dhici doono dagaal kale oo qabiil salka ku hayo ayuu yiri sarkaal ka tirsan ciidanka dawladda federaalka oo ku sugan degmada Dhuusamareeb oo warbaahinta si hoose ula hadlay hoggaanka ahlu sunna ayaa doonaya ay joogaan degmada Dhuusamareeb isla markaana dawladda federaalku doonayso in magaalada tan ay keento hayeeshee waxaa la sheegayaa tani in ay keentay khilaafa ku aadan iyadoo dawladdu ay doonayso in magaalada Muqdisho la keeno hoggaanka ahlu sunna iyo sidoo kale generaalkaasi
oo jenaraal mascuud la yiraahdo uu isna ka biidiiday in magaalada tan muqdisho la keeno xubnahaasi. haatan wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland Maxamed Dhabancad ayaa sheegay in dowladda federaalka ay xoog u sheegatay ahlu sunna wal jamaa isla markaasna ay ku xun yihiin in dowladdu ay burburisay hay'adihii dawliga ahaa ee ka dhisnaa Galmudug. waxa uu dowladda dhexe uu sheegay in xoog ay u sheegatay mas'uuliyiintii ahlu sunna ee Galmudug oo muddo dheer waxa loogu yiri argagixisada ka sifeeyay deegaanada Galmudug. wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland ayaa sheegay in Galmudug haatan lagu leynayo ciidankii loo tababaray in ay la dagaalaan shabaab iyadoo loo adeegsanayo dhaqaalihii beesha caalamka in ciidankaasi qaranka lagu weeraro Galmudug iyo shacabkeeda isla markaana ciidamo kale dowladdu ku eedeeyay in ay u daabushay gobolka Gado. wasiirka ayaa sheegay in arrintan ay ka taagan tahay guud ahaan qaybo ka mid ah deegaanada dowlad goboleedyada isagoo ku tilmaamay arrintan in ay tahay mid markaa ay dowladdu ay ku doonayso in dhammaan ay ku wiiqdo maamul goboleedyada awoodihii ay lahaayeen. tallaabada dowladda federaalka ee ku aadan arrimaha gobolada dhexe gaar ahaan dagaalkii ka dhacay Guriceel iyo Dhuusmareeb ayaa Puntland waxa sheegtay intaasi ay tahay mid dowladdu ay ku doonayso in ay ku sii faafiso ciidanka loo tababaray xasilinta dalka deegaanada dowlad goboleedyada. wasiir Dhabancad ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dalka aan xoog lagu maamuli karin haddii xoog wax lagu xalinayna Soomaaliya taasi in ay ka dhici karin ayuu yiri. ugu dambeyntii wasiirka ayaa dowladda dhexe ku eedeeyay in howlihii loo igmaday iyo qorshayaashii looga fadhiyay inta meel ay iska dhigtay ay maanta ay bilowday in ay la wareegto xarumo ay muddo badan ay maamulayeen ahlu sunna isla markaana ku qabsadeen dagaal ay la shabaab. maanta mas'uuliyadda dowladda federaalka waxyaabihii laga sugayay waxaa ka mid ah dhamaystirka dastuurka dib u heshiisiinta qaran. taa beddelkeeda waxa ay doorbiday in ay xoog u sheegato maamuladii ka jiray qaybo ka mid ah gobolada dalka oo ay ugu horeyso ahlu sunna oo qayb lixaad la ka soo qaatay xasiloonida dalka ayuu yiri. sidoo kale waxa uu sheegay in xilligan dowladda federaalka waxyaabaha ay ka wado gobolada dalka cashar laga bartay haatanna ay doonayso in awoodeeda ay isugu geyso gobolka Gado iyo deegaanada kale ee Jubbooyinka asi marka ay ula wareegto deegaanadaasi ee Jubbaland gacanta ay ku hayaan. haatan wararka laga helayo gobolka Sool ayaa sheegaya in xaaladda deegaanka Tuqarraq ee gobolkaasi ay degan tahay wixii ka dambeeyay markii madaafiic ay isku weerarsadeen ciidamada maamulada Puntland iyo Somaliland. madaafiicdaasi iyo israsaaseyn dhexmartay dhinacyadaasi ayaa waxaa sheegay in khasaare ay soo kala gaarsiisay dhinacyadaasi. ciidamada maamulada Puntland iyo Somaliland ayaa muddo ka badan hal sano isku hor fadhiya deegaanka Tuqarraq oo ka tirsan gobolka Sool. dagaalka u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland ayaa dib u soo laba kacleeyay wixii ka dambeeyay markii labada dhinac dhaqdhaqaaqyo ay ka bilaabeen gobolada Sool iyo Sanaag. colaadda ka taagan goboladaasi ayaa waxa ay keentay labada dhinac in ay isku birtuntaan isla markaana ciidamo horle ay keenaan jiidaha hore ee dagaalka. mana jiro wax xal ah oo laga gaaray dagaalka u dhaxeeya dhinacyadaasi. haatan 15 xubnood ee golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa mar kale waxa ay ku celiyeen rajadooda ku aadan in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho qaran oo hal qof iyo hal cod ah dhamaadka sanadkan ama bilowga sanadka soo socda ee 2022. hadal qoraal ah oo goluhu soo saaray waxa uu sheegay in waajib ay tahay in loo hoggaansamo taabagelinta doorashada hal qof iyo hal cod sida ku cad dastuurka kumil gaarka ah ee Soomaaliya. goluhu waxa uu sheegay in horumar laga sameeyay oo diyaargarowga sidii loo qaban lahaa doorashada qaran ee Soomaaliya. waxaa kaloo ay soo dhaweeyeen doorka dowladda federaalka, baarlamaanka federaalka iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. golaha ammaanka qaramada midoobay waxaa kaloo qoraalkoodu ay ku sheegeen in doorashada madaxtinimada Soomaaliya ay noqoto mid nabadeed, daahfuran, hufan, la isku halayn karo, loona wada dhan yahay. goluhu waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in loo fasaxo in muwaadiniin badan ay codayn karaan sida ugu macquulsan. dhinaca kale hadalka qoraalka ay ka soo baxay 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in lama huraan ay tahay in la xaqiijiyo qoondada haweenka kuraasta baarlamaanka ay ku yeeshaan 30% iyo in la meelmariyo kuraasta gobolka Banaadir iyo maamulka Somaliland ay ku yeelan doonaan baarlamaanka soo socda ee federaalka Soomaaliya. guud ahaan warkii oo idinkala socoteen channelka madasha wararka waa inaga inta. fadlan subscribe si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada halkan aan ku soo gudbino.